walaalaha gargaarka agoonta oo ah walaalo muxsiniin ayaa maanta bilaabay barnaamijka afuri walaalka oo lagu afurinayo qoysas badan oo danyar ah ayaa ka wada duleedka magaalada Muqdisho. walaalaha gargaarka agoonta ayaa ah walaalo mar walba u taagan garab istaaga dadka danta yar. qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay afurkan ayaa u mahad celiyay walaalaha gargaarka agoonta iyagoo sidoo kale u duceeyay inuu alle muraadkiisa u sahlo. Abdi Muxuddin Maxamed oo ah qofka bixiyay afurka maanta. الدنيا أقر الله كأنفع. مظلومين كانوا كارمي أفر نصير ودعينا مال ألم ما يكسق عنه ولا حلا وسودي قيرا وبكينا ما يكسق عليه ما بكينا قيرا ورجها بشوف رمضان. wakiilka ururka gargaarka agoonta u fadhiya magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daylal ayaa ka warbixiyay barnaamijka afuri walaalka oo ay maanta bilaabeen. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh. maanta waa maalinta koowaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan. maanta waxaa bilaabnay barnaamijka afuri walaalka waan ka bilaabnay gobolka magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. waxaan afurinaynaa qoysas aad iyo aad u tiro badan. waxaan ka afurinaynaa degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. runtii walaalaha waxaan madrinaa walaalaha gargaarka agoonta oo mar walba laga taageera barnaamijka afuri walaalka iyo sidoo kale waxaan madrinaa dhalinyarada ururka dawladaha oo har iyo habeen xoogooda iyo maalkooda ku sadaqaysta barnaamijkani. waan u mahadcelinayaa dhammaantooda. sidoo kale waxaan rabaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay halkan baaq ugu diro oo ah baaqaas oo ah in aan caawino walaalaha Soomaaliyeed jooga duleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan gobolka Banaadir oo runtii aan ka sameynayno barnaamijka afuri walaalka. barnaamijka runtii waa barnaamij baahidiisa aan dabooli karin haddii aanan dhallinyaradani runtii barnaamijkani aad iyo aad u farbadanta baahida. runtii baahida mar walbana ma dabooli karno balse waxaan soo baahin doonaa baahida qaybaheeda kala duwan intii karaankeenana maadaama dhalinyaro aan ahayn intii karaankeena waajibkeena aan gaarsiin doono. sidoo kale waxaan rabaa dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan barnaamijkani waa kusoo dhaweyn doonaa xoogooda iyo maalkooda inay nagu sadaqaystaan. walaalaha gargaarka caawinta runtii waa mahadcelinaa. sidoo kale waxaan rabaa inaan mahadceliyo maamulkii waa Soomaaliyeed oo runtii hormuudka u ah walaalaha gargaarka agoonta oo runtii maanta barnaamijka afurinta wuxuu isugu jiraa runtii timirta iyo bariiska iyo qarihii iyo cabitaanka ayuu isugu jiraa. ku dhawaad waxaan gaarsiinaynaa 300 oo qoys ayaa maanta ugu talagalnay inaan gaarsiino. runtii waan rajayn doonaa inaan gaarsiino qaybo kala duwan. assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh. Mukhtaar Cabdi Aadan, Ariel TV, Muqdisho.